dadka aflaanta galmada jila sidee bulshada dhexdeeda ugu dhex nool yihiin. Sidoo kale dadkii jili jiray aflaanta galmada sida Jackie Chan, Sylvester, Mia Khalifa maxay ka yiraahdeen, lacag intee leeg bay qaadan jireen. Gaar ahaan waxaan si fiican u falanqayn doonaa Mia Khalifa waraysi ay siisay BBC-da. Su'aalihii la weydiiyay qayb ka mid ayaan soo qaadan doonaa. Sidoo kale waxaa mowduuceena ku arki doonaa qaabkay isaga dayn kartaa daawashada aflaanta galmada ah. Qodobada iyo qodobo kale haddaad rabtid inaad ogaatid muuqaalkaana la dhammayso. Waxaan ku jirnaa taxanaheennii halaag, qaybtaana waa qaybtii labaad. Qaybtii koowaad waxaan kusoo qaadanay daawashada aflaanta galmada heerka ay maanta dunida ka marayso. Intaan mowduuceena bilaabin fadlan muuqaalkan like inoo saar sababtoo dhiirigelin bay inoo noqonaysaa. Kuna soo biir kanaalkeena xog baahiye adigoo subscribe taabanaya. Daawashada Facebook la daawado waxaa ka badan daawashada muuqaalada galmada ah. Website aad u badan baa laga soo geliyaa, badankoodan hal meel bay isugu yimaadaan. Lacagta aflaantaas laga helo waxay ka badan yihiin dakhliga dowlado waaweyn aan naqaano. Aflaanta markii la jilaayo waxaa la doortaa rag iyo dumar soocan oo diyaarsan oo aan u baahnayn in la dhiso. Mararka qaar waxaa dhici karta qof aan laga tagi karin laakiin aan habaysanayn. Qofkaas muhiimka ah waa la dhisaa oo waa la qurxiyaa. Haddii uu qalin u baahdana qalin qurxinaya jirkiisa ayaa lagu sameeyaa. Waxaa lagu duubaa kaamirooyinka kuwooda ugu faseexsan uguna tayada fiican ee adduunka maanta taala. Dadka aflaanta galmada jilaya mar walba qol kuma jilaan, mararka qaar waxay ku jilaan meel qolka ka baxsan. Dadka aflaanta galmada jila dadka ayay ku dhex nool yihiin, mararka qaar sawiro ayay la galaan. Waa rag xitaa qaarkood xaaslayaal ah. Caadiyan bini aadamka gaal iyo muslimba cawrada in banaanka la keeno ceeb bay u arkaan, oo waa wax bini aadamka ku abuuran in cawradiisa uu qarsado ha noqdo gaal ama muslim. Laakiin dadkan aflaanta xunxun jila waxay isku arkaan in wixii doonaan ay samayn karaan. Sida khaniisiintu xorriyad ay u leeyihiin, iyagana inay xorriyad u leeyihiin bay aaminsan yihiin. Laakiin khaniisiintu waxay kaga duwan yihiin, iyagoo galmo sameynaya lama soo duubo. Bal ka waran kuwaan xumaanta bannaanka keenaya. Bal ka waran haddaad suuqa maanta ku arki lahayd Mia Khalifa. Mia Khalifa in badan baa magaceeda maqli jiray, laakiin meesha aan kow ku arkay oo aan ku bartay waxay ahayd Facebook-ga. Sawirkeeda la soo dhigay waxaa leeyahay qofkii gabadhan yaqaana waa ahlu naar, qofkii gabadhan yaqaana jannada xaaraan bay ka tahay, qofkii gabadhan yaqaana waa legendi. waxaas la soo dhigi jiray. Markii dambe baa baaray taariikhda dabagalay, markaas baan gartay in ay tahay gabar jili jirdhay aflaanta galmada. Laakiin haddeer ma jisho oo way ka baxday. Dad waxaa jira aflaanta galmada soo jili jiray. Waxaa ka mid ah aktarkii caanka ahaa ee Sylvester Stallone oo kasoo bilaabay jilidda muuqaalada galmada ah. Muuqaalkii galmo ama kulankii ugu horeeyay uu sameeyo waxa uu ku qaatay $200. Hadda waa $200 oo keliya halka muuqaaladiisa malaayiin dollar laga sameeyo. Maanta waa aktar caan ah oo la yaqaano, laakiin jilidiisa wuxuu kasoo bilaabay muuqaalada galmada ah. Sidoo kale waxaa jira aktar caan ah oo la yaqaano Jackie Chan, isagana halkaasuu kasoo bilaabay. Waliba muuqaalka galmada ah waxa uu ku jilay Hong Kong, laakiin maanta waa aktar caan ah oo la yaqaan. Sidoo kale waxaa jirta gabadh loo yaqaano Mia Khalifa oo jili jiray aflaanta galmada ah. Mia Khalifa hal go'aan oo ay qaadatay ayaa nolosheeda oo dhan bedelay. Caasimadda dalkeeda Lubnaan ayay ku dhalatay ee Beirut. Iyada oo 10 sano jir ah ayay Mareykanka u soo guureen iyada iyo reerkeeda. Waaqaca ay timaaday ayaa bedelay. Waalidkooda oo diinta Kiristaanka ku adadkaa in badan way isku dhaceen. Iyaduna waxay rabtay sidii doontina u dhaqanto. Waxay rabtay waxaan doonaa sameynayaa waddan xorriyad ah baan imaaday. Waana sabab ka mid ah sababaha ay dabinka xun ee jilidda aflaanta xunxun ugu biirtay. Reerkeeda ayay in badan isku dhaceen kadib markii ay arkeen in ay isticmaasho xashiishka iyo wixii la mid ah. Gadoodka ay reerkeeda ka gadooday ayaa waxay ku kaliftay in ay ku biirto jilidda aflaanta xunxun. Shirkadda aflaanta xunxun soo gelisa maamulkeedu waxaa aad u soo jiitay jirkeeda oo aad u qurux badnaa, iyo shirkadda oo aan kharash badan kaga bixin dhisidda jirkeeda
oo waxay ahayd gabar qurux badan oo diyaarsan. halkaas ayay hoogga iyo halaagga uga bilaabmay Mia Khalifa. xilligii ay muuqaalada xunxun bilaabaysay waxay jirtay 21 sano jir. Mia Khalifa iyadoo ka sheekaynaysa waxay tiraahday, meesha uma gelin lacag ka helo, laakiin waxaan u galay inaan ogaado inaan wax samayn karo. awalkii hore waxaan aaminsanaa inaan waxba qaban karin. intaa waxay u sheegtay mar BBC-da laga wareysanayay. Mia Khalifa waxay caan ku noqotay in aflaanta galmada ay ku jisho xijaabka, taasoo aad u soo jiidatay macaamiil badan. hase yeeshee waxaa aad uga carooday muslimiin badan oo adduunka ku noolaa. waxay ka xanaaqeen in astaantooda lagu jilo aflaanta xunxun oo weliba lagu duubo. fariimahan jabaada ayaa u soo dhici jiray Mia Khalifa, gaar ahaan waxay uga soo dhici jireen daacish waxay u soo direen muuqaal qof la gowracayo oo weliba magaceeda uu ku qoran yahay. waxay ku dhaheen adaa ku xiga. iyadana waxay maamulkii ka codsatay in ay ka daayaan xijaabkan ay u xirayaan, iyada oo sheegtay inaysan ku ciyaarayn sharafta dadkeeda Carbeed. laakiin xijaabku carab kaliya ma lahane, muslimiin oo dhan buu ka dhaxeeyaa. walow iyada aysan muslim ahayn oo ay ahayd Kristan, laakiin maamulka shirkadda aflaanta xunxun soo geliya ayaa waxa ay ka diideen in ay xijaabka iska dhigto. waxayna ku dhaheen xijaabka waad xiranaysaa waana ku jilaysaa aflaanta galmada ah. haddaan ku dhaho ka waran, Mia Khalifa 3 bilood oo kaliya ayay aflaanta xunxun jilaysay. 12 muuqaal bay samaysay, halka iyada gunna ahaan loo siiyey markii ay ka tagtay muuqaalada xunxun oo ay iska daysay. waxa gunna ahaan loo siiyey $12,000 oo kaliya, halka muuqaaladeeda balaayiin dollar laga faa'iido. wariyihii wareysanayay markii ay ku tiri $12,000 baa lay siiyey, waxa uu ku yiraahday, ma 12,000 oo kaliya lagu siiyey halka balaayiin dollar laga faa'iido. markaas bay tiri way dhacday, aniga kaliya ma ahane, qof walba oo meesha ku jira waxa ay dareemaan fakhrigaas. Mia Khalifa ciyaalnima qaaday iyadoo 21 jir ayay ku biirtay, laakiin goormay ka shalaynaysaa mar ay xeere iyo fandhaal kala dhaceen. xitaa markii ay ka sheekaynay sida u guursatay, waxa ay tiraahday, nin baan isbaranay, ninkaas ma ogeyn inaan aflaanta xunxun jili jiray. waxa uu markii dambe booqday Instagram-kayga, waxa uu ka yaabay malaayiinta qof ee igu xiran. markaas ayuu magacayga baaray, markaas ayuu ogaaday in aflaanta galmada aan jili jiray, laakiin ugu dambeyntii waan isguursanay. wariyihii BBC-da ka socday ee wareysanayay Mia Khalifa waxa uu ku yiraahday, dhibana ayaa tahay soo maahan. iyadana waxay ugu jawaabtay, maya, wax walba oo dhacay mas-uuliyaddeeda anaa qaadanaya, cidna cambaareen maayo, laakiin waxaan filayaa in ay tahay khibrad ii soo hormartay. hadda waan ka shalaysanahay wax walba oo aan sameeyey, haddana taas kama dhigna in aan qaadanayn mas-uuliyadeyda. anaa mas-uuliyadda qaadanaya, wax walba oo sameeyeyna anaa khaladkeeda lahaa. yaxyax iyo xishood ma dareemaysa ayuu wariyihii ku yiri. markaas waxay ku tiraahday, yaxyax iyo ciil badan baan dareemayaa. hal go-aan oo aan qaatay markii aan jiray 21 jir, in noloshaada uu raadeeyo adduunka oo idilna candhadaada iyo cawradaada laga daabanayo. ceeb ka weyn miyaa jirta? ma lihi wax sir ah oo ii qarsoon, mana ku qanacsanay sida ay wax u dhaceen. waxaan isku dayi doonaa inaan bedelo qaabka ay dadka ii arkaan. waan ogahay inay taas adag tahay, haddana ma joojin doono in aan dadka bedelo waxay ii arkaan. qisada ama wareysiga ay BBC-du ka qaaday Mia Khalifa waxay caddaynaysaa in Mia Khalifa la dhalo rogay iyadoo yar maskaxdeeda laga xaday. isku dhaca iyada iyo qoyskeedana laga faa'iidaystay. qofku wuu khaldamaa, khaladkiisana waa ka soo laabtaa. waan ogahay khalad weyn bay samaysay, laakiin wax taa ka daran ayuu Ilaahay cafiyaa. qof gaaloobay oo diinta islaamka ka baxay oo haddana ku soo laabtay ayuu Ilaahay cafiyaa. waayo gaalnimo wax ka weyn ma jirto, waa Ilaahay xaqiisa oo qof kale loo leexiyo. Mia Khalifana waxay samaysay gaalnimo wax ka weyn ma jirto oo Ilaahay waa cafiyaa. walow Mia Khalifa ay tahay gaal Kristan ah, laakiin hadday soo islaamto wax walba oo ay samaysay Ilaahay waa u cafinayaa.
bal iska daaye wixii xumaana ay samaysay oo dhan ilaahay waxa uu u bedelayaa ajar keentid ilaahay waa uu ku cafinayaa dembigaasna xasanaad iyo wanaag buu kugu bedelayaa haddaba sidee iskaga dayn kartaa daawashada aflaanta xunxun runtii go'aanka saxda adiga qaadan kara haddii adiga aadan go'aansan iskama dayn kartid haddaad go'aansatidna waa hubaal waa iska daynaysaa waan ogahay way kugu adag tahay inaad iska daysid waxaad dhici karta in muddo 5 sano ah aad maalin walba ku haminaysid inaad iska daysid laakiin aadan weli iska dayn oo ilaa maanta ay 5 sano kula marayso dadka qaar baa 6 sano daawanayay qaar baa 7 sano daawanayay micnihii sida saxda ah iskaga dayn kartid waa adiga in aad qaadatid go'aan kaba dambays ah go'aan sax ah waa inaad qaadataa ilaahayna tala saaro waad iska dayn doontaa insha Allah waxaan kuu ballan qaadayaa 3 bilood haddaad joojisid daawashada muuqaalada xunxun jirkaaga dib ayuu u soo laaban doonaa laakiin inta aad muuqaalada daawanaysid waxaa tahay qof nool oo haddana aan noolayn dhibaatada daawashada muuqaalada galmada ah waxaan kaga soo hadalnay qaybta koowaad ee taxanahan halaag ayaan kaga soo hadalnay marka dib ugu laaban maayo maanta wixii ka dambeeya dib ha ugu laaban daawashada muuqaalada xunxun go'aankaagu waa inuu maanta ka bilaabmadaa haddaad tiraahdid biri baan ka bilaabayaa biri kale kuula tagaysaa waa waxuu qof ku taraaraxo maanta go'aanso maanta wixii ka dambeeya dib dambe ha ugu laaban ka waran adigoo daawanaya muuqaalada xunxun haddii uu indhaha kaa dhaco ka waran adigoo daawanaya muuqaalada xunxun haddii ay naftu kaa baxdo waad ogtihiin qisadii ku dhacday wiilkii suuliga ku daawan jiray aflaanta xunxun oo suuliga ku dhintay kadibna meesha loogu tagay sheekada waxaan kaga soo hadalnay qaybta koowaad ee taxanaheena halaag qaybtaanna waa qaybtii labaad maalinta beriya waxaan soo gelin doonaa insha Allah qaybta 3aad waxayna ka hadlaysaa saameynta ay heesaha leedahay iyo inay kugu sababi karto buuro dembi ah inuu ilaahay kuu qoro insha